محاين لقد بن بشن شعبان انت اين كدح جرنو arrimaha ku saabsan sharciga dhexdiisa mashruuca ku ah sharcigeenu inoo jideeyay iyo waxyaabaha la diiday iyo waxyaabaha taariikhda bishan ay leedahay ayaynu dhowr arrimood ka soo qaadan doonaa insha Allah bishan waxa kamida waxyaabaha dhaxdhacay xagga taariikhda islaamka tahwiilul qibla shacbaan baa qiblada laga soo jeediyay dadka muslimiinta قدس بيوتو كان ينمركب مدينة تجين دورية طبان بلاد بيش شعبان بقى لقسو تشيدي سنة دي لبعض قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخر الآية رسولك صلى الله عليه وسلم ومدى بوحة لفري إن قدس كسوتش السودان كعبدي قابلة وأنا سيدو النبي تعالى عليه الصلاة والسلام بشهر شعبان ما دام رمضان يسود وذهي سندي لبعض هجرة أيها إلهي وحو فرض كدغي صوم كبشهر رمضان يو سكات فدرق الله بلغا تاريخ ذي ذوحة كم إذا markuu nabigu degay calayhi salaatu wasalaam Madiina masjidkii soo dhisay guriyada baa la dhisay xaasaskiisa iyo guriyada ummadda kale ba dadkii ku cusbaa laakiin guriga aakhire ugu horeeyay ee baqiic lagu bilaabay sanadan shacbaan buu ahaa saxaabigii la oran jiray Uthman ibn Mad'un xabaalahan inuu siyaarana baqiic bishaas la bilaabay asxaabigaasana lagu bilaabay Uthman ibn Mad'un taariikhdeeda waxa kamid ah wax badan baa ku xiran Hussein ibn Ali inakii nabigu awooga oo ahaa bishan u dhashay sanadii shanaada hijrada fi nafs al-aam sanadkan labaada hijrada sanadka shanaada hijrada waxa dhacay dagaalkii la oran jiray ghazwatu bani al-Mustaliq taariikhaha todobada ah ilaa markaynu ka soo gudubno arrimaha sunnaha bishan dhexdiisa waxa kamid ah fi hada ash-shahr inaynu soomno soom sunna ah waxana inoogu daliila ahadiith rasuulka ka sugan sallallahu alayhi wa sallam waayo wixii diin ah ya wixii cibaada ah rasuulkaynu kaga dayanayna halkaasana ajriga iyo abaalka weyn uu ku jiraa صوم كان سنها هنا واك إسبير كوا أما كبا يفرل كمال أنت قيامة مركو ينقدين ما عائشة الله كرالي نقد النبي قال هذا الشو حيتري يسجى كور أنت وحيتري لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان مرك الله قرر يبر رمضان بلها بش أوجس صوم بدنا وحيد بش شعبان لا يلا قبل لقى يا وقف كونوا لا ما بش وير تمر يسنة يا حاجات تمرة أنوسي يشهر رمضان إن عكلوا النبي هناك يجي عليه الصلاة والسلام رواية كقاركاض حيث الماما فإنه كان يصوم شعبان كله حديث كالصحيحين شعبان لما أنت باب وذا سومي حديث كاللبادة يساقون حسن كأسامة بن زيد باورينية نبي عليه الصلاة والسلام أيو الله الله وحاول كمان أرق هذه صوم كبضية سيدة شعبان وبضيس بلاها كلا وما بدي سيد صومك صنها سيدات بيشن شعبان وبدي سمحاجره سرت أي حكمة النبي قوشة عليه الصلاة والسلام كدمنا وحول وهو شهر ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان أنت ورئيس وحوي ضدك أيا كي يردع عمل كيس يصوم كيس وبيشن كم إذا بلها حرمة رجب إنه صار دافني ويكد دالان عبادة رمضان ويكد دالان لبضع صور حياة تضبط بان سومين بان مركانو تاسن كفايدين يا أبو يا أرنت لبضع ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين إلهي حقي ساعة ملضى ملائكته أي أوجد بيان عمل كأضامها يور بحنتيس فأحب أن يرفع عملي وأنا صايم waxaan jecelahay camalkayga ilaahay loo gudbiyo ana sooman labada xigmadood buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam idan halka waxaynu ka fahamnay xigmadihiisa labada uu nabigu inoo sheegay iyo inuu yahay tawdi'atan
لرمضان وتدريبا للعمل فيها قفكي باوسي ربايد قادنا يا رمضان نفتي بسيئة بنا يا صوم كسيئة قليسين يا وعكلاين كفامنا بالوقت كستو عبادة ضدتكو اي كمشغول سيهين قفك كد دالا إنه أجر ويليه بيشا waxa sunnaa in la soomo sawmu sarari ayaamaha dhexe ayaamaha cadcad Imraan ibn Husayn buu nabigu ku dhac alayhi salaatu wassalaam xadiidkii Bukhari iyo Muslim ku jiray hal sumta min surari hada ash-shahr bishan miyaad soontay dhexdeedii ayaamii iftiimay marka asxaabigu waxa uu maya rasuulku wuxuu ugu jawaabay fayda afdarta أي من رمضان فصوم يومين marka hadaba Ramadaan ay dhamaato laba maalmood soo soon oo halkii u galaya arinta labaad ee aynu qabanayno arinta saddexaad waxa weeye sunnaha inaan la soomin maalmaha u dambeeya bishan soomaad kula dadaalayso cishada ama labada u dambeeya way iska ilaalinaynaa nabigaana diiday calayhi salaatu wassalaam xadiidkii Bukhari لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك الصوم رمضان مالنا كله رمالنا أما الله بعش إذن كدونا ينا سكتان بشهر رمضان وكد ذا شان عبادة ذو إلالنا يو إسله يا وحبيد دافي صوم يوم شك بالله يقنا في الفقه الإسلامي laakiin qofku hadduu caado u soo taxnayd lahaa wuu ku sii xidhiidhin karaa maalinkaa u dambeeya oo dee keligii kumuu gooni yeeli soomka waxaa afraadoo bisha dhexdeeda sunno ah qadaa'u ramadaana fii shacbaan dadka qaarkood baa dumarkii ha u badnaadeena lagu lahaa soom qalla ah oo ramadaantii hore ah fursaddii markaa way soo gaabato way soo ururaysa maadaama ramadaantii kale ay soo dhowaatay marka ehelka ubadka ooriyaha iyo ummadaba in lagu baraarujiyo maxaa qala lagu lahaa ku dadaalo soo qofkii kari karaya saxiixaynka waxa ku sugan min xadiis Aisha qaalat kana yakunu alayya as-sawm min ramadan fama astati'u an asumahu illa fi sha'ban bararka qaarkood ba soom la igu yeelan jiray leeda qala ah man haleeli kari jirin ilaa inaan soo gaaro shacbaan mooyaan sida nabiga oo hawlihiisa u wado aan ugu dadaalayo ugu khidmaynayo marka shacbaan la soo gaadhaadaan ka gaarsiin jiray soomka labada waxay leeyihiin xadiidkana waxa laga qaadanayaa soomka dadajintiisa soomka qallaha ah inaanu waajib ahayn waayo Aisha ilaa waqtiga may soo gaadheen wasa sunnay la dadajiyaa waxa sunnaa ducada waliba habeenka kala bara bisha shacbaan laylatu nasfi min shacbaan maxaa ku soo aroray daliil u khaas xadiis Tirmidhi uu warinayo min xadiis Aisha xasana nabigu wuxuu alayhi salaatu wassalaam inna allaha azza wa jalla yanzilu laylatan nisfi min sha'ban ila as-samaa'i dunya fayaghfiru li jami'i khalqi illa al-mushrika wal-mushahin habeenka bisha shacbaan ay kala barkataa ilaahay baa samada soo ka soo degaya waa soo degitaan isaga u gaaroonka makhluuqa la mid ahayn wuxuu u dhaafayaa khalqigiisa oo dhan buu dambi dhaafayaa qofka gaalka uma dhaafayo qofka mushaaxinkaana uma dhaafayo mushaaxinku waxa weeye qofka naxli iyo nacaybsiyo walaalkii ugu jiro ciil iyo carab badan qaba ciil qabe oo cuqdad badan dadka u haya bal arrinta khatarteeda qofkii gaalka ahaa liiskiisii la raaciyay gaalkii looma dambi dhaafayo kii walaalkii u caraysnaa ciilka u qabayna looma dhaafayo inteeba inaga ciil iyo carab ka maranba iyo cadaawadu walaalkii u hayo ilaa man casamahu Allah cid ilaahay uu ilaaliye mooye waa cudur inagu badan inkastoo fursadaasi ay jirto habeen walba saxiixa waxa ku sugan inuu nabigu alayhi salaatu wassalaam ilaahay habeen walba yanzilu ila samaa'i dunya fi thuluth al-layl al-akhir fi thuluth al-layl al-akhir habeen walba ilaahay samada soo degaa marka saddex meelood oo meel ay ka hadha habeenka waqtigaas salaatu leylka loo kaco 4 saacadood dambe ilaahay wuxuu leeyahay hal min mustaghfirin fa aghfir lah ma jira mid dambi dhaaf weydiisanayo anigu aanu dhaaf
هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه إلى أن يطلع الفجر يا وحبري يا أنسيا إلهي سبحانه وتعالى تاسو الضوامها ويبوها يا عدي فرصة كفايدة ستاه هرمر وين يا أقبل يا إجابة ودودي شنتا الريموت ووحيابها إن لقد بن بشن شعبان لا يراده شن الريموت اللي قد جايبين مركز راعين لهاي أو إحنا مشروعية مأمور دين تدحدي هذا وحلا ينفري وإحنا منهيات وحلا ينودي ذا عبادته مركز قفك تقيق الله كعب صدا وقفك كده لا وحي لفري سنة يفر البا وقفك إسكا إلالية وحي لودي ذا حرام يكرهيه وهناك بدع في هذا الشهر بشان هذا شعبان لا هذا بدعوين شر باكره وحكم إذا بدعة الشيعة وهبين كان يستقى دادو فرصته وحضرك دونت الشيعة كواحدة منحرف كمسلم كشيكتا يقول مالها كقيل يورنا يا سيارة حسين إن كي نبي السيارة سيبانو دقينا مالها يسوي ماده يا مساجد استانا واوين حديث waxay ku sheegaan oo mawduucaada bay u dajiyeen asal lahayn oo kamid yahay man lam yastati' ziyarat al-Husayn falyazur ghayrahu min al-a'imma fa in lam yatamakkan aw ma'a ilayhim bisalam qofka kari waaya Husayn inuu soo booqdo yaalka uu ku aasan yahay a'imada kalaha soo booqda a'imada u jeedaan waa ay tulayaashooda kii kari waayana xagooda salaanta هاو إشارة حديث بيه وقال لي ضدك وحيدتك كو عامين يا موضوع لا يقاني ألفتين وحل بعض بدعاها أي سوكر لي صلاة الألفية في هذه الليلة وحي نقد لي ضدك قار كود بابا لقيا اسكما ساكين إن يكون دايدان إلى هذا وديننا كود دال محي دي ما يسن بدعاها قار بال ضدك شيطان كو قد لي وسو دينون ماها ويسكا وناكسنت اسكا سماه iska sameeyada lagu qabsanaya lagu ciqaabaya waxa labaad bidacooda kamida salaad ay u bixiyaan salaatul alfiya salaada kullayda wa 100 rag'a fiha fi kulli rag'atin 10 يقرأ فيها 10 مرات سورة الإخلاص بقول رقعات والرقعات والبلغو آخرية طبعا قول هو الله طبعا لقول فتح بقول دوا كن صلاة الألفية بيو بحيه ولي وين جمع لقوت كذابين هذا وحين أرقنا صادو فرسان دون طاعة شوراء يو ليلة النصف من شعبان أبيك كالبرا شعبان ويكوين يعني عيدها حتى عيدها مسلم كلها يعيد الفطر يعيد الأضحى waxaa saddexaad firqooyinka qalooca qaarkood ay la yimaad ku sheegaan inay habeenkaasi uu yahay habeenka quraanka lagu sheegay ee ilaahay uu inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka habeen barakaysan baan quraanka soo dejinay maba haba yiraahdeen habeenka laylatul qadriga waa habeenka kala bara bisha shacbaan wala beentaas wada quraanku isaga isfasiraye ilaahay baa wuxuu xusay quraanka in la soo dejiyay ramadaan shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran marka quraankii ramadaan la soo dejiyay ee la sheegay habeenkan in la soo dejiyay habeenka ramadaan ku jiray u dhigantaa taasina daliilkaas ka hor imanaysa waxa afraado bidcooyinka kamida takhsiisu laylati bil qiyam wan nahari bis siyam li hadith la asla lahu indahum waxay yiraahdeen habeenka waa in lagu gooniyo la qiyam iyo cibaado aad u badan oo habeenka la tukanayo maalintiina la soomo waxay u soo qaateen رأي الدجيان حديث كشجان إلى إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها هذين كامر كجاردان مالنتينا صومها بين كين عبادة شتاجا بدعة واحد كم إذا صلاة الله يقانا صلاة الرغائب مرك قار كود وقت جنيت كذا مرك قار كود وكدوان إمام النووي رحمه الله مركو كور رمي يوحى ولها صلاة الرغائب وصلاة الشعبان بدعتان منكرتان قبيحتان labada salaadood ee midna shacbaan la tukado midna la yiraahdo salaada jacaylkiya raqbadii abateed waa laba bidco oo aad u xun oo fog bulaha iyaduna lix ragcadood bay ku sheegaan arrimahaasina shanta ana bishan dhexdeeda
waa wax mudan in lagu baraarugsanaado oo qofku aanu kaga dayanin dadka samaynaya markaynu furaska ama jaaniska ka faa'iideysano inagoo jeebka khayr ku sii ridanay ama ka buuxsanay una diyaar garowna insha Allah ta'ala ayaynu gaari Ramadan kadibna khayrkii weynaabaynu halka ka sii wadi doona Allah ina waafajiyo اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra